السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal kusoo dhawaada halka aad naga daawanaysaan waa TV-ga Somalisat caawana waxaanu ku suganahay goob loogu dabaaldegayo xafladda maamulka goboleedka Khartoum State of Somalia waxaan noo suurta gashay dad Soomaaliyeed ama dad Mareykanka siyaasadooda ka qayb qaadanaya oo ka soo qayb galay xafladdan inaan waraysi aanu la yeelano halkan waxaa nala jooga maanta Cabdi Malik Askar oo isagu ah musharax u taagan xisbiga Republican Clear Cabdi Malik markuu horeysa barnaamijka kusoo dhaw maxaa nooga sheegi kartaa waxa ay tahay kursigan aad u tartamaysid marka hore aad baa maasantay runtii Axmed iyo dadka daawanaya dhamaantood waxaan leeyahay runtii waa habeen farxada waa sanad guurida labaad aan la kulanay Khartoum State of Somalia waxaan joognaa hawlka Safari saad u arkaysaan backgroundkiisaba wana gobolka Minnesota dhamaan dadka adduunyadana runtii naga daawanaya waxaan leeyahay aad bay u maasin kursigan aan u ordayaa waxa xaafadda la yiraahdaa district Minnesota waxay ka kooban tahay 67 degmadood degmo kastaaba waxa uu jooga aqalka cad ee gobolka Minnesota 67 xubnood baa u jooga degmo kastaaba hal xubin baa u jooga marka 67 xubnood ayaa markaa waxay noqonayaan sanadka uu ka kooban yahay Minnesota waa aqalka sare weeye aqalka hoose wuxuu ka kooban yahay 143 district kastaaba laba qofood ayaa wakiil oo jooga marka waxa loo kala qaybiyaa A iyo B marka aniga B-ga xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis ayaan u tartamaya kursigaas anigoo ku tartamaya xisbiga Republicanka saadogta gobolka Minnesota saddex xisbi ayuu ka kooban yahay xisbiga dimuqraadiga oo uu ka socdo Obama hadda xilka haya iyo xisbiga Republicanka oo hadda ah xisbiga iyagana ka jira iyo waliba xisbiga independentiga marka waxaan ku ordayaa xisbiga Republicanka magaciisa doorashaduna waa bishan sanadkan November ayay dhacaysaa hadii Allah wada loo marka hadda waxa lagu jiraa isreebkii xisbiga gudihiisa ayaa lagu jiraa wuxuu dhamaanayaa March koodeeda waxa ka dambeeyay xisbiga dadka ay nominate gareeyaan ayaa marka noqonaysa in magaca xisbiga ku tartamaan kabacdina waxa la galayaa doodihii iyo debatekii dadka ka kala socday xisbiyada taasoo markaas xaafadayda runtii Soomaalida ay ku badan tahay inkastoo marka ay noqoto sidiga Soomaalida ay badanayso waayo xaafadda ay kala ayaa ku jirta oo meelaha Soomaalida ay degan sida 24 mallka sida Franklin jidka oo dhan sida downtownka agtiisa guryaha dhaadheer ka oo dhan laakiin markay noqoto state level markay noqoto waxay noqonaysaa district 60B taasna waxay keenaysaa marka in dadka Soomaaliyeed ay noqdaan 5600 oo qofood inay degan yihiin inta kalena waxa nooga badan dadka kale ajnabiga عبد مالك aad baad u mahadsantahay sharaxaada guud oo aad naga siisay inkastoo aad tahay nin xagga media-ana ka shaqeeya saacada dhinaca waxbarashadan waa ka shaqeysaa sidaan ognahay Soomaalida gobolkan waxa ka haysta dhibaatooyin badan hadii ay shaqada noqoto hadii ay guryaha noqoto hadii ay noqoto xagga midabta koorka oo xagga diinta ah waxa ogtahay dadka Soomaalida waana dad muslimiin ah waana dad madow xogaa noloshaasina way ku adkaatay marka adiga hadii aad heshid maxaad isleedahay baad u qaban kartaa dadka Soomaalida ah ee ku nool gobolkan Minnesota absolutely عبد السادق تاي حسبيان Republican كسادق تاي مبادئي سووا الرئيس وحوي وفامily أيو values يا قيسسك أيو number one سيا مثل بعض كلا وحوسية faith أو الدين تا مركز سادق تاي حسبيان هدي أنا قان كوجوليستو number one للع الصومالي ده حنقول نسا جول بيحنقول نسا وايو state كا وحنو كين يا ميسك أصصار يا مساجد ده قبل كان من الصوت إن مركز آذان كيكرو قاعد كرام هذا الأذانك وحلقوا قدام عقل كهوستيسا لكن سي Republican كحسبيان أو حوي freedom of religion بيرادا ماشى دين عقل الديمقراطية إيرادا freedom from the religion وحروان الدين تكحروان الديمقراطية لكن حيرادا إن دين تلحريه أيو كدودا Republican كمركز تاسان أنو كدودا إن دين الإسلام كيحور نقطه إن دين الإسلام كأذان كذا لما قلق سيد دبي مركز مرة أذان كم تاسو number one دين عدين توي تلوهذا كله قويس كا وحوي سادوك تاي الحسبيان وحو قيمية نين يناقص قضايا قيمية عروف مركز سادوك تاي فرينكا قبل كمينيسوتا دتك ugu badan waa Soomaalida taa marka waxa keenaya in systemka ama mabda'a jira aysan isku keeni karin marka waxa noqonaysaa in uu sahalno in ninka iyo naagta ay wada joogi karaan marka labadaas waa guul weeye dhinaca kale waxbarashada oo kale wax Republican-ka xisbigan ku tartamaya ee golin wax la school choice minas waxa weeye in waalidku ay go'aanka leeyihiin cunugiisa inuu meel kasta geysan karo laakiin dimuqraadiga waxay leeyihiin ma guriga aad degantahay kaliya aad geysan kartaa taa macnaheedu waxa weeye hadii iskuulada xaafadayada masaakiinta ee buurka ah ee dadka ah ee aad lagu qasbo inaad wax ka barato ma geysan kartid xaafadaha shishe ee dadka lacagta leh ee iskuulada ma teacher fiican hayr gareysan in carruurtaada geysato marka anaga waxaan promote gareynaa waxa weeye carruurta inay choice helaan in waalidka xaq u leeyahay cunuga meesha doono gobolka Minnesota inuu ka geysan karo hadan dadka Soomaalida qaarkood waxay aaminsan yihiin ama perception ay ka aaminsan yihiin xagga waxyaalaha immigration-ka iyo xagga markay noqoto dadka soo galeetiga soo dhaweyntiisa waxay aaminsan yihiin xisbiga dimuqraadiga inuu ka duwan yahay xisbiga Republican-ka
hase ahaatee laakiin waxaad moodaa dadka qaarkood waddanka inay imanayeen iyadoo ay niman madaxweyneyaal waddanka yihiin republicana marka waa maxay sababta soomaalida badankeeda ay u taageeraan xisbiga dimuqraadiga oo aan loo taageerin xisbiga republicanka maxaase kula talinaysaa inay fikirkooda aad wax ka bedesho dadka iyagu taageera badanaa dimuqraadiga oo aan republicanka taageerin waa good question way number 1 waxa weeye horta xisbiga republicanka badanaa soomaalida ma fahansana saad ogtahay president Bush wuxuu ahaa Mareykanka waxaa doortay muslimiinta Mareykanka degan oo dhan baa doortay marka waxa weeye horta dadkii in loo soo istaago Soomaaliyeed laga sharaxo maxay ku kala duwan yihiin labadan xisbi sida hadda aan sheegay oo kale midna uu yahay diinta inuu freedom ka dhiga midna dadkii diinta ka cararaya so marka waxa weeye marka ugu horeysa waxa weeye dadka waana u sharaxnaa waa maxay xisbigan ama faa'iidada laga leeyahay waa maxay waxa taabatay immigrationka saad ogtahay waxa runtii aad iyo aad u taageera waa republicanka way waayo gobolada republicanka dhan ay u badan yihiin waxa ku xigan xadka Mexico ay ku xigaan therefore marka dad badan oo Mexican oo soo gala republicanka waxa ku doodaan in markaasi ay taageeraan dadka refugeega waxa kale oo republicanka ay ku fiican wax leedahay individual rights qofka in la siiyo xorriyad in la siiyo meesha kuwa kale ay ku doodayaan group ay ku doodayaan marka Soomaalida qaarkood marka la yiraahdo dimuqraadi waxay moodaan Obama kaliya haday arkaan inay dadka oo dhan wada dimuqraadi yihiin laakiin macnaheedu ma aha halka qof ee u ordaya macnaheedu waxa weeye mabaadiida ka dambaysa iyo yaa u fiican community-gan yaa u fiican diin ahaan haday noo noqoto waxa noo fiican Republican waxbarasho haday noo noqoto caruurteedu waxa noo fiican Republican marka immigration haday noqoto waxa ku fiican Republican marka tanoo fiican waa Republican laakiin qof u soo istaaga oo Soomaalida u sharaxa oo waxay ku kala duwan yihiin banaanka u soo dhiga ayaan jiray marka aniguna taasan u soo istaagay runtii inaan u sharaxo Soomaalida markaana ay u taageeraan codkooda haddaan ku weydiiyo dadka Soomaalida qaarkood waxay yiraahdaan dadka Soomaalida waa dad conservative ah waa mid dhaqan ku adag waa mid dadka diinta ku adag waa dadka luqadda ku adag misladahay xisbigan Republicanka iyo Soomaalida waa isleeyihiinba gadaal ahaan markaad ka eegto Soomaalida waxa weeye dadka lagu xantay ee la yiraahdo caloosha waxaan ka ahay hoos waxaan ka ahay Republican laakiin markaan vote ka dhiibayo waxaan siiyaa dimuqraadiga ayaan siiyaa taa marka waxa ka mid tahay Soomaalida dadka lagu xantay kamid marka taa waxay noqonaysaa inay isbedelaan Soomaalidu ay yiraahdaan anaga waxa noo fiican waa maxay maaha kaliya qof noo yimaado oo orday oo dhahay dimuqraadi baan ahay laakiin waxa weeye qofka isagu value-giisa inuu eego qiimihiisa inuu eego yaa aniga caruurteeda u fiican yaa qoyskayga u fiican yaa diinteeda u fiican taas iyadoo laga duulayo ayaa waxaan qabaa anigu xisbiga Republicanka inuu u fiican yahay dadka maaha in la yiraahdo caloosheeda waxaan ka hayaa dhaqankayga Republican baan ka hayaa laakiin markay vote timaado waxaan u vote gareynayaa dimuqraadi because ma arag wali Republican intuu yimaado Soomaaliya afkooda ku hadlaya luqadooda la diina oo dhahaya vote-ka siiya waxay arki jireen in kaliya dimuqraadi u yimaado taa marka waxay keentay runtii in xisbiga Republicanka ay dad badan aysan ku soo dhiirin laakiin maadaama hadda aan wadada aan u furay aan ninka ugu horeeyay ee Republican u ordaya in marka dad badan ay ku soo dhiiran doonaan dhinaca kale haddaan wax ka weydiiyo hadda kulli siyaasadda gashay xisbiga Republicankana rag kamid ah caawa kula socdaan oo la sheekaysatay dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin cadaanka ama baa u badan xisbiga Republicanka dadka madowga waa ku yar yihiin principal difference baa u dhaxeeya maxaan ku raadaa marka ayadaga naftigaaga dadkan u badan cadaanka oo ah dadkan cadaanka ah ma ku qanci kartaa inay ay xiriir la sameeyaan waxyaalaha lagu eedeeyo ama xisbiga Republicanka wadanka lagaga guuleysto waxa la yiraahdaa inay tahay cilaaqaadka uu la leeyahay dadka minority-ga dadka blaaga ah dadka Latino ah dadka Muslimka ah principalkii uu ku taagnaa xisbiga Republicanka wax ma ka bedeleen وصابسنا رمها دك كلا كلا وقت أدب ما صنتي مركل اللي هو Republican بأو بدل مينس محوي majority وده مرة كان كعدان بأو بدل ده مينس مرة كعدان كي هذا Republican يهين ده وحلا ليه يجا أو بدل Republican كي ملاه ديمقراطي وكوب بدن هاي ومجالوي كجوده وملاه مساكين تا دتك أما دتك بورك دقيقين دتك ديمقراطي وحدونه يعني دتك advantage كقانا أو دتك يبوركو هيان oo aysan dadkii iskuulla buur ah xaafado buur ah oo soo qofku waliga walfar ka bixin guri loo weyn kama ku jiro laakiin Republican waxay aaminsan yihiin in dadka la siiyo xorriyadooda oo qofku dhaqaale uu sameeyo waxay aaminsan yihiin businesska waxay aaminsan yihiin in qofku fursad heli karo meesha doono uu gaari karo one more question ana arintan xaga aad ka sharqamisay xaga shaqooyinka xaqiiqdan hadaad fiirisid dawladda welfare ay bixiso waxay aadaa dadka ganacsatada ama dadka businesska ururka Republicanka badana waxa la yiraahdaa wuxuu aaminsan yahay dadku inay xamaashaan oo ay shaqeystaan Soomaalida waxa yiraahdaan mar walba oo qofka uu qaato cayd ama uu ku nool yahay guri low income noloshiisa kalena hoos u dhacdaa marka ma aaminsan tahay inay xisbigan galitaankiisa inay ku dhiirigelinayso dadka Soomaaliyeed inay nolosha caynkaas oo kala wax ka bedelaan oo ay galaan nolosha ah qofka inuu aamino inuu shaqeysto absolutely waxyaalaha ugu soo dheerinay kadib marka 20 sano Mareykanka joogay waxyaalaha kamid ah waxa weey war in aan nahay dad soo jireenaha oo Soomaaliya oo ganacsigan ku fiican sadarkiisa gobolka Minnesota marka
maxaa noo diidaya ganacsigeena dukaan kaliya aysan ahayn corporate-ka aan geli karayno haddii marka inaga aynaan republicanka la jaan qaadin oo xisbigooda ayna ka mid noqon oo dadka marka iyagu doonaya inay qofka individual freedom siiyaan ganacsigana runtii promote gareeya ama taageera inaan marka cilaaqaad la sameysano oo xisbigooda dhex galno oo aan markaasi aan ka mid noqono waxa noo diidaya maaha kaliya inaan ku ekaano welfare 20 sano waxaad arkaysaa nin qurbaha joogay oo wali guri loo income degan oo wali waxaad arkaysaa carruurtiisa iskuulada joog marka waxa lagu leeyahay iskuuladii choice-kii republicanku ay leeyihiin waxaad aad cunugaaga waalidka waxaad geysan kartaa iskuulka doonto dimuqraadigu ma rabaan because waxa la rabaa in lagu keep gareeyo meel carruurtaadii adiguba aad iskuulo income ka tihiin marka waxay noqonaysaa hadda mid u furtay indhaha Soomaaliya dad badan oo Soomaali ayaa hadda ila soo xiriiray waxay yiraahdeen ma moodi jirin inaan republican u ordi karno waxaan moodayna kaliya oo maskaxdana laga dhaadhiciyay inaan dimuqraadi u ordi karno marka taad minis waxa weeye marka hore ma isku fikri jirin marka hadda wadada hadaan u furay hadii Allah wada dad badan baa ku soo dhiirin doona Dan Severson, I'm a former state representative, former Navy fighter pilot, and I am here tonight to meet with the Somali community, and we have a great opportunity here to get to know each other as we're moving forward, and I've got some good friends within the community. Abdulmalik Askar is one of those, and I've had the pleasure of knowing him for last few months, getting to know him, and I'm excited about his candidacy because he really does want to stand for the values that his community holds dear, and he wants to be a voice for that community. Yeah, you know, immigration is always been, for America, has been a hot issue. It's been one of those where people come here, and they come here because of the freedom and opportunity that America has to offer, and so that is what our country was based on. And I think as new communities come in, there's always going to be rough roads, but understanding that these people come. Usually when they're coming from these other countries, they're very talented, they're willing to take risks, which is what America is all about. And so for us, it is incumbent on us to really open our arms and say, you're welcome in America, become part of our fabric, you are a part of our fabric, and the things that you have come here for, we want to help you build. And so that's probably one of the biggest things is about family. And when you come here to be able to establish yourself, be able to start a business, be able to create income, and be able to provide for your family, and then pass something down to your children that you wish that you would have had and allow them to do better. And that's the American dream, and that's why I'm so excited about working with the Somali in this community, because that's who the Somali community is. They're people who want to come here, they want to have an opportunity to pass something down better to their children, and really to support the family values that make the family strong. And so that's exciting to me. Whether it's pro-life and it's pro-traditional marriage, it's pro-business, it's getting away from big government regulations and restrictions that really don't allow the people that are just starting up businesses to be able to prosper. So, well, this is huge. I mean, for Abdulmalik to do this, we've been looking for a Republican to come in from the immigrant community and stand with us for Republican values and to be a voice for the community, because those are the values that these communities are coming forward with. And unfortunately, to date, the Republican Party has not been strong in reaching out to these immigrant communities. And we're changing that. I work with an organization, I have an organization called Minority Liberty Alliance, that we work to reach out to these communities and help them promote the conservative values that their community holds, and then teach them how to operate in government, and train them on how they can be an effective voice for their communities as a representative in government. And so Abdulmalik is the perfect candidate for this process, and we're going to work hard with him to help him achieve that goal. But even more importantly, he becomes a symbol to the rest of the community to say, if you're going to be in politics, you don't have to compromise your values. You can hold the values of the community, and you can represent those values and actually succeed and do what America was all about, and that's representative government, representing the values of the people, not of special interest groups, not of politicians, but of the people.